madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa kadib kulan ballaaran oo maanta la yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxa uu si rasmi ah u sheegay inuu yahay musharax u tartamaya qabashada xilka maamulka loo sameeyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waxaana madaxweyne Qaybdiid ka hor inta uusan kelmadaasi ku dhawaaqin uu sharaxaad ka bixiyay waxqabadkii muddadii 2 sano ee intuu hayay maamulka Galmudug waxa uu sheegay in madaxweyne Qaybdiid ay ku guuleysteen dhismaha xarumaha maamulka wax ka qabashada horumarinta adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada dhismaha iyo dib u habaynta wadooyinka iyo dib u soo celinta bilicda magaalada Gaalkacyo iyo kuwa kale waxaana madaxweyne Qaybdiid uu sheegay in haddii uusan ku guuleysan xilkaasi uu la shaqeyn doono cid kasta oo ku guuleysata inay hoggaanka u qabato maamulka loo sameeyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaas aan sheegay iyo intoo kale ku laba laaban waxa weeye ilaahay fadligiis waxay qabsoontay xilligii anigu aan dowlad goboleedka madaxda ka ahay ayay qabsoontay maantay rabaa inaan idinku wargeliyo waxaan rabaa weli xoogii iyo maskaxdii iyo enerjigii wixii laga khasaariyey oo meeshii aan u socday aan gaari waayay haddii alla yidhaahdo waxaan isleeyahay haddii la ii doorto madaxweynaha dowladda dhexe ee gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaan leeyahay waxaad gaarsiin kartaa meel ka fog waxaan isleeyahay haddii alla yidhaahdo haddii gobolada dhexe ay arrintaas bulshada ku dhaqani gobolada dhexe haddii ay ii doortaan oo ii idmadaan xilkaas waxa weeye haddii ilaahayna ila garab galo waxaan ballan qaadayaa in muddo 2 sano ah gobolada dhexe inay ka dhacdo isbeddel buuxo ah amni horumarin haddaana waxba ku soo kordhinayn maba soo istaageen maba soo aadeen anigu haddaa meeshaas ay noqoto ilaahay idinkii inaan ku soo bixi waayo waxaan ballan qaadayaa waxaan ku kordhiyey maahane dadka ku soo baxa inaanan carqaladayn baan ballan qaadayaa Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa isagoo ka mid ah ilaa dhowr musharax ilaa ay haatan sheegay inay u tartamayaan xilka musharaxnimada qabashada madaxweynaha maamulka loo sameeyo gobolada dhexe ee dalka taasoo haatan dadaaladiisa loogu jiro in la dhiso Cabdi Xasan Maxamed Ahmed telefishinka qaranka Soomaaliyeed Gaalkacyo.